ruushka ayaa joojiyey gaaska uu ka iibin jiray dalka Poland sida uu dhigayo qandaraaska Yamal saacadihii dambe ee xalayto. Xogta laga helay shabakada midowga Yurub ee howlwadeenada gaasta ayaa muujiyey taasoo sii xumeynaysa khilaafaadka u dhexeeya reer galbeedka iyo ruushka kadib duulaanka Ukraine. Bulgaria sida Poland oo xubin ka ah NATO iyo midowga Yurub ayaa hore u sheegay in ruushku uu sidoo kale joojin doono saadka gaasta. Ukraine ayaa iyadu ku eedeysay ruushka in uu Yurub uu ku sameynayo cunaqabateyn tamarta si uu isku dayo in uu jabiyo xulufadooda iyada oo uu dagaalku socday bishii saddexaad ayaa hadda colaadu soo gaadhay arrimaha gaasta ee wadamada Yurub ay ka iibsadaan Moscow. Poland oo ay isku xun yihiin ruushka ayaa haddana ka mid ah wadamada Yurub ee doonaya cunaqabateynta ugu adag ee ka dhanka ah madaxweyne Putin, waana arrinta keenaysa inuu gaastiisa ka joojiyo. Qandaraaska sahayda gaasta Poland ee shirkadda tamarta ee Gazprom ayaa sanadkii ah 10.2 bilyan kubic mitir sanadkii, waxaynay dabooshaa 50% isticmaalka qaranka Poland. Maamulka Poland ee Bignik ama BGN ayaa sheegay in sahayda Gazprom la goyn doono 8 subaxnimo markay gaadho saacadda Poland. Xukuumadda Warsaw waxay sheegtay inaysan u baahnayn inay kaydso gaaskeeduna uu yahay 76% buuxa. Arrinkaas ayaa loo qaatay in ay istaadraacinayaan nabarka madaxweyne Putin uu ku dhuftay dowladda Poland. Hore waxaynu ogeen madaxweyne Vladimir Putin inuu ugu baaqay wadamada aanay saaxiibka ahayn inay bixiyaan gaasta iyagoo iskaga bixinaya lacagta ruushka ee rublka, isagoo sheegay in wadamadaas ay kaga iibin doonaan keliya lacagtooda. Hadafka ugu dambeeyay ee hogaanka ruushku ma aha oo keliya in uu qabsado dhulka Ukraine, balse waa in la googooyo dhammaan bartamaha iyo bariga Yurub oo uu dhabar jab ku noqdo dimuqraadiyadda caalamka. Waana qayb dagaalka ka mid ah joojinta gaasta ayuu yidhi madaxweynaha Poland. Siyaasiyiin kasoo jeeda galbeedka ayaa hore u sheegay in siyaasadda ruushka ay qayb weyn ka tahay isticmaalka gaasta. Wadamada Yurub ayaa qaarna ay isticmaalaan gaas badan, qaarna ay isticmaalaan 3% oo ah tiro aad u yar sida boqortooyada Britain, halka wadamada qaar sida Jarmalku ay isticmaalaan 60% iyo wax ka badan. Ka joojinta Poland ayaa walaac weyn mar kale gelinaysa wadamada sida Jarmalka gaasta badan ka isticmaala. Bulgaria oo si buuxda ugu tiirsan soo dejinta gaasta ruushka ayaa sheegtay inay buuxisay dhammaan waajibaadkeeda qandaraaska ee shirkadda Gazprom iyo in nidaamka lacag bixinta cusub ay la soo jeediyey ay tahay sharci jebin ama xeer jebin kuwii ay ku heshiyeen amaba heshiiskooda hore ka mid ahaa, balse ay hadda la jaan qaadayaan xisaabta cusub. Dowladda Bulgaria ayaa iyagoo ka hortegaya in gaasta laga joojiyo wadahadallo hordhac ah oo ku saabsan soo dejinta gaasta dareeraha ah ee dabiiciga ah la galay dowladda Moscow. Shirkadda Gazprom ayaa iyagu sheegay in aanay weli joojin sahayda ay siin jireen Poland, balse ay Warsaw ku qasbanaaday in ay bixiso qarashaadka gaasta iyaga oo la raacaya dalabka lacagta bixinta oo isticmaalaya rublka. Wadamada Yurub ayaa shir degdeg ah midowga Yurub isugu yeedhay si ay uga arrinsadaan tallaabadan ruushku qaaday oo hore ay u saadaalinayeen amaba ay u sahansadeen in aanu marnaba joojin doonin gaasta, maadaama ay u maleynayeen in aanu lacagtooda ka maarmi karin. Ka maaritaanka lacagta midowga Yurub ayaa hadda ku noqotay afkalaqaad wadamadii ka isticmaali jiray balse ka madax adeegayay in ay lacagta rublka wax ku iibsadaan.